الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة دينتا وضياشة وحقرتك اللوانا شرفت له هير قلمدوك اللوانا هير معمول دقمة قال كعيو عقاشة كله بروفيسور وحقرتك دمان قبلها يوم هو هويوين كجوجا دمان وحكو سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب طبعا وحان ملينا يا وركي ومهم سنة وحكاها اللي وضياشي وحقرتكي كلو يجوري مقالة سفر كي وح ودارنا يسعود كيننا ولا جور بحيي أنا وهالكان وحان كوم مغنين وياهن حمر وأن هولوش أوجرني سفر كيجا يسعود كيجا وهو كوساب سنة هاوشة هوبيو يصير لودا مسترلا ولا الله يجا وهالكان فديو سلطانكو هو جاميناي يهلبانا دي فدرالي يمحوها قلمدو يركلوا أيجا محوها وحقرت كبيشة أي مقالة هوبيو جوجي وحبذا أي ددال ودين ددال كاس إن دمسترنو أيو محوها سعود كينو كوساب سنة وحنا سفر كينا يو إماتن كينا نقصو halkaas xamar naga soo diray wasiirkayaga arrimaha gudaha oo arintaasi muhiimad gaar ah ay u lahayd in laga qayb qaato hawsha ka taagan hobyo iyo ra'iisul wasaaraheenii hore ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble intaas kadib annagu hadaan meeshii tagnay waxaan isku soo dhaweynay bulshadii meesha degneed waxayna suurtagal noqotay in deegaankii doorasho la aadiyo kursigiina loo daayo bahdan balweynta saacad si gaar ah beeshii aan hore u siinay oo kursigaas lagu suntay in ayaga helaan xisaab ahaan iyo qayb ahaan haddaan gudaha u galnay waxay keentay in deegaankaas annagoo laba mas'alaba ka duulayna in deegaankiina loo hiiliyo kursigiina aan helno inaan ka shaqeyno inuu deegaankaas dhismo oo horumarkiisu uu ku saleysan yahay inuu golo deegaan helo waqti dheer kadib waxaa meeshaas ay ku soo dhamaatay annagoo wada jirna in magacaabis lagu helo ayadaas marka annagoo marka ka mahad celinayna ayaan safarkayaga ka soo baxnay hobyo waana soo dhaweynaynaa waana muxuu ahaa gacmo ayaan ku wada qabanaynaa inay nimankan walaalaha iyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada ay ka shaqeeyaan in magaaladaas ay horumar gaarto in magaaladaas muxuu ahaa dad wada dhashay oo walaalaha ku wada nool dadkii oo mid ah in doorasho la gaarsiiyo oo deegaankaas uu horumar yeesho ayaan intayada ku wada faraxsannahay waana ka wada shaqeyn doonaa annaguna waxaan laga rabaa inaan gacan ku siino inay nimanka dhalinyarada lagala shaqeeyo wax alla wixii keeni kara dib u dhac oo deegaanka ku yimaado taas marka hobyo aan u bixinaa safar dheer oo aan ugu talagalnay inaan soo ogaano baahida ka jirta deegaanada ay beesha degto ayaan waxaan uga soo baxnay hobyo annaga xildhibaanada iyada markii hore wisil waataan safarkii hore tagnay waxyaabaha ugu daran oo wisil aan kusoo aragnay waxay ahayd galaasyada qaar iskuulaadka in banaanka lagu dhiganayo ardaydu ay qoraxda la fadhiyeen galaaska form 4 oo kale waxaa khayr Allah siiyay xildhibaanadii muxuu ahaa qorsheenu noqday in galaas loo dhiso dayactirna loo sameeyo iskuulkii intaas waxay ahayd waa annaga midii tabarucayna ahayd isbitaalka magaaladu isbitaal bay lahayd isbitaalkaasi wuxuu ahaa isbitaal yar oo emergency ah in isbitaal weyn oo la dhagax dhigayna la dhameystiro ayaan proposalkiisa soo qaadnay welina process ugu jirtaa magaalada liyaado xeerad dahab oo aan soo marnay waxaa ka socday horumar ballaaran hoteelo qurux badan ayaa nin tolka ka tirsan uu ka dhisay aad u ballaaran oo qarash badan uu geliyay ceel biyoodna waa ka sameeyay bulshada muxuu ahaa magaalada ku nool waa bulsho beeraley ah ceelasha hal ceel baa hadda u shaqeynaya ceelkii kale ma dhammaan hadda la dhisay ceelkaas kuma filnayn deegaanka waana ceel
biyihiisu uusan macaan ahayn sidoo kale isbitaalka magaalada iyo iskuulkuna waxay ahaayeen dhul iska bannaan oo aan deerna lahayn deegaankaas muxuu ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo culayska ka haystay ayay waxay ahayd qaybta caafimaadka oo hooyada iyo dhallaanka qolka delivery roomka ama ay hooyadu ku dhasho meel iska bannaan waa ciyaalka darashada iska soo istaagay oo laga yaabaa in meeshaas ay ka daawadaan ilaa wax ka dhicin kara male sidoo kale waxaan jirin musqul ay gasho oo musqushi bannaanka loo aaday culaysyo badan marka isbitaaladu ay magaalooyinka dadku ay ku nool yihiin lagu hayay qayb ka tahay hadday xaaladeedu emergency noqotana in la soo qaado waqti qaadanaysa hay'ad ambulance ma taalo ilaa 5-6 magaalo dhinacaas ku aadan hal hay'ad maamusho hay'ad leedahay Mercy USAID hay'adaas cabasho badan deegaamadii aan soo marnay looga soo gudbiyay oo ku aadan inay daawadiina keenin isbitaalkiina ka shaqeyneen meeshiina iska xiran tahay oo ayagu ay haystaan ayadaasna waxaan rabnaa meesha ay qusayso ayaan uga hadli doonaa magaalada Ceeldibir sidoo kale magaalooyinkii waxay ka mid tahay aan degmada u gudbinay oo phase 1 aan ugu talagalnay deegaankan inay tahay magaalo shuruudii degmada buuxisay horumar degmo leh muxuu ahaa city balaankeedu uu fiican yahay waxaan rajeynaynaa inaysan ka harin degmooyinka hadda maray oo lagu soo daro haddii alla idmo magaalada liyaada budbud waxa ugu weyn oo ayagana ka jiray waxay ahayd bacadkaas oo xiray iyo hay'adan Mercy oo ayadana ah hay'adda meesha haysay waxyaabo looga sheegay waxa kamid ahaa cunug yar oo meesha ku xanuunsaday oo oxygen la'aan intuu dhashay subaxii inta la dalbay ambulance habeenkii 5 saac markay timid cunugii meesha ku meeday subaxii la dalbay 5 saac habeenimo timid macnaha wuxuu yahay magaalada liyaado xeer dahab ilaa bacad weyn ilaa bitaale ilaa muxuu ahaa budbud dhulkaas oo dhan Ceeldibir hal ambulance ka shaqeyso oo hay'adaas leedahay ilaa ceel guula soo gaar hal ambulance marka dhul intaas la eg ma ka shaqeyn karto culayskaas marka waan haystaa oo deegaankii ayuu ka jiraa ceelashii oo deegaanka laga qoday oo aan soo marnay ilaa muxuu ahaa aan ku soo gaarno bitaal waxa laga cabanayay oo ugu badan waa ceelal horay oo bahdaani muxuu ahaa jaanis ay u heshay inay qodato ceelash inta badan xooluhu ma cabi karaan waa ceel wada cusbaa oo milix waxa marka si gaar ah ugu mahad celinayna wasiirkayaga wasiir Kaarshe oo bahdan u hiiliyay oo maantay mashaariicdii ugu badneed oo galmudug ay heshay boqolkiiba aan dhigi karo 70 inuu deegaankan soo geliyay ilaa 9 ceelna waa qoday 2 xurfood waa sameeyay 27 ceel waa dayactiray laakiin wali waa baahidu waa taagan tahay oo ceelashaas waxay u baahan yihiin haddii muxuu ahaa la heli karo inaan xoogga saarno in dib loogu laabto oo ceelal cusub deegaanadii lagu celiyo magaalada Xiingod iyo Afbarwaaqo muxuu ahaa iyo meesha la yiraahdo Bandarseed iyo Bandar Qaali intuba waxay ka wada sinaayeen duruufahaas aan ka hadalnay ama waxbarashada ha noqoto ama muxuu ahaa ha noqoto biyaha ama muxuu ahaa caafimaadka ha noqoto magaalada liya Afbarwaaqo macallimiintu ilaa 2 macallin ayaa shaqeynaysay oo galaasyaduna 2 xabay ahaayeen laakiin isbitaal ahaanna waa fiicneed daawo ahaanna waa fiicneed dhinacaas ayuu aad uga fiicnaayeen niman walaalaha iyo jaaliyada oo dhisay ayaa uga mahad celinaynaa shaqo badan ka qabtay aad iyo aad u mahadsan yihiin si gaar ah ula dardaarmaya jaaliyadaha beesha oo dibadda ku maqan inay magaalooyinkooda dib u nooleeyaan oo ka shaqeeyaan sida nimankaas oo kale loogu daysto ayaguna waxaan ka codsanaynaa inay saas u shaqeeyaan inta kadib magaalada liyaado bitaale oo dhammaan ay isugu yimaadeen reer galmudug maanta baahida ugu weyn oo ka jirta waxay tahay in raashin iyo biyo dhaamis u baahan yihiin hal ceel shaqeynayay sida ay noogu warbixiyeen maamulkii degmada dadkaasna ma qaadi karin oo culays badan ayaa meeshaas ka jiray ayadana waxaan rajeynaynaa wasaaradaha iyo hay'adaha qusayso inaan gaarsiino anagu wali survey-gayga ma dhamaan socodkayagu wuxuu mari doonaa dhul badan oo hadda noo dhiman waxaan rajeynaynaa inaan baahiyaha ka jiro aan qaadno oo aan gaarsiino meelaha ay qusayso deegaankan
annaga ayaa bulshada iyo deegaan u ah qofkii wax garta ama qofkii soo muxuu ahaa aqoon yeesha waxa laga yaabaa magaalada inuu soo galo oo magaalooyinka soo aado waxaa marka ka codsanaya xalay dhalinyarada la kulmay in dhalinyarada wax baratay ay dib ugu laabtaan deegaanka oo macallimiin ka noqdaan dadka wax baraan dadka la soo saaro fursadaas ayaan waxaan ku soo aragnay niman dhalinyaro ah oo aan deegaankan u dhalan in magaalooyinkayagii ay imtixaamaynta u galeen ee ka shaqaynayaan qofkii marka deegaankii asagoo heli kara inuu mushaarna ku helo dadkiisana wax baro waxay u tahay fursad weyn annaga marka waxaan codsanaynaa dhalinyarada wax baratay inay deegaanka dib ugu laabtaan 2 sano 3 sano waxay rabtaa la ekaat in laga shaqeeyo inay ka shaqeeyaan waxna baraan dadkooda intaas baahiyaha magaalada ka jiraan waa warbixin ayaan kala qaadanay ugu horeeyo garoonka Cabdullaahi Ciise in la dhameystiro dawladdu meelaha ay muxuu ahaa budgetkii loo hayay inuu ku filnayn in ambulance loo baahan yahay oo aan waxaan soo aragnay ah ay dhalinyarada noo gudbiyeen ayadana waxyaabihi aan qaadnay ka mid yihiin akhyaarta halkan joogto iyo gabdhaha iyo wiilasha waxaan u maleynayaa anagu safarka iyagu iyo socdaalkeenu saas ku saabsan arinta dhismaha dekada Hobyo waa soo dhaweynaynaa qof walba ka shaqeynaya hadda waxaan qabar ku haynay in shirkadda Hormuud ay qayb ka qaadan doonto gacmo buuxan ku soo dhaweynaynaa qof alla qofkii aan u aragno inuu wax ku soo ziyaadin karo waa dekadayadii waa rabnaa inay dhisanto waa soo dhaweynaynaa waxaan intaas marka aan uga baxayaa safarkii iyo socdaalkii iyo warbixinteedii arinta nabadoonka uu ka hadlay Nabadoon Cabdullaahi oo ku aadan agaasimaha guud beeshan waa beel balaaran oo wax waayaan 4.5 ka aad loogu cariiriyay annaga wixii aan ka rabnay dawladii lagama helin haameed waa si kale loo maqlmay waxaan marka aan rajeynaynaa sida Maxamed uu u qaaday ayaan uga qayb qaadan doonaa beelo badan oo walaalaha iyaga oo aan waxba haysan waa ku jiraan Galmudug ayaguna sidaas oo kale aan u rajeynaynaa inaan dareen u qaadno maxaa yeelay ninkii de walaalkaayo adigina aad laga yaabo dhowr cad inay haysatid asaguna hal cad haysan inaysan munaasab ku ahayn ayadaasna waa ka shaqayn doonaa odayaasha iyo waxgaradka magaaladan jooga annaga xamar de guddiyan leenahay odayaalaha guddiga iyaga xamar jooga iyo siyaasiyiintu waa isku xiran yihiin xildhibaan ha noqdo wasiir ha noqdo dad iska warqabo bulshadaas ay isku xiran ayaan nahay halkan odayaasha jooga iyo xildhibaanada deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo saysan fidna iyo culays dambe iyo in dadku la kala dhaxgala ay meesha uga baxdo ayadaasna waa codsi waxaan rajeynaynaa in xildhibaanadu ay hawshaas fududiyaan oo ay odayaasha geed fadhi u noqdaan baahida deegaanka oo maamulka Galmudug ku maqanna lagala shaqeeyo dadka oo muxuu ahaa gacmaha la isqabsado sidoo kale waxaan xoojinaynaa nabadda iyo wada noolaanshaha gobolkan wadankan hal dagaal ka jira annaga beesha halkan joogta waxay ku wanaagsaneed horeyna ugu soo nooleed nabad iyo wada noolaansho maantana waxaa jira dagaal hal cadow ah oo hal dhinac ah dagaalkaas beeshu gacan weyn ayay ka geysatay waxaana inta dhiman in la dhameystiro rajeynaynaa oo nimanka khawaarijta lagu dagaalamayo inta dhiman in la dhameystiro aad iyo aad u mahadsantihiin warku waan ku dheereeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh